Door wanaagsan saaxiibayaal sida u dhantihiin meel kasta aad joogtaan waqti wacan ayaa idin rajaynaya. Intaa kadib maanta horyaalada weyn ee caalamka kooxaha badan ama ciyaarayaan balse kooxaha qaar ayaa ciyaaraya sida Liverpool iyo Man United oo ah big game taasoo Liverpool ay tahay away halka Man United-na ay home tahay gurigeeda ay joogto. Marka waxaan ka soo qaadanay in total over 2 gool ay iska dhali karaan meesha wax ka timaado ka badan ay ka imaanaysana waa 100% waa lagu rajawan yahay. Sampdoria iyo Juventus oo ah horyaalka Talyaaniga iyo Juventus oo away ah. Juventus waxaan saarnay double chance kooxdan Finland ka dhisay Fenerbahce iyo kooxdan kale Adana iyadana Fenerbahce ayaa waxaan saarnay double chance waana koox adag. Kooxdan Kahonga iyo kooxdan kalena inay kooxdan badi karto Roma sidoo kaleeto ayada inay badi karto. Marka shantaas kooxood oo kaliya ayaa maanta ayaan kusoo koobnay sida hore idinku sheegana sanadkan horyaalka waa adag yahay. Shalay City Bridge ayaa gashay waa laga badi tagay halka Chelsea-na aad qof walba heshiis macluul ahayd. Leeds United video ka horeysa aan soo dhigayna waan idin sheegay Leeds United dab yar mashadeyso way adag tahay saasayka double chance ayaa noo saarneed balse Leeds koox adag waaye. Marka intaan horyaalkan bishan kala qabsanayno kulay markay wada ciyaaraan ayaan inoo baxaya marka laakiin inta ka horeyso odds-ka aad iyo aad ayaan ugu dadaali doonaa in la yareeyo ama wixii macquul markaas la soo dhigo. Marka waa mahadsantihiin guuleysta.